awlaadeedii iyo durriyadeedii haddana cumar uu socday waxaa la yidhi ninka aqalkaa gala waa nin shaaribul khamriga khamrigu cabba markaasuu cumar yidhi ma magaaladii madiinaa khamri lagu cabbaya sawniga dhintay ma cumar aqalkiibuu hor yimiday wuxuu arkay ninkii oo markaa islaantiisa wax u shushubayso qululubta ay weelashu hayaan markaasuu cumar aqalkii ku dhacay baa la yidhi markaasuu ninkii baa yidhi yaa cumar joogso ittaqi allah ilaahay ka yaab anu hal amar oo xukuma ayaan jebiyey adigu laakiin 3 aayadood oo quraan ayaad jebisay buu maanta oo waa maxay waxa la yidhi walaa tajassasu dadka muslimiintu muuminiinta kale walaalahooda inay ceebahooga doodoonin raacraacin adiguna ceebtaydii baa daba gashay buu ka yidhi aayadda waad ku xadgudubto waad jebisay waatul bayuuta min abwaabihaa baa la yidhi albaabada aqalada ka soo gala baa la yidhi adiguna albaabkii kamaad soo gelina waad soo dhacday buu ka yidhi لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها بلا يري أقلها كوينا هين هجرنا إلا أهل كوجود إذن يا سلامتان وإذن كقادتان مويان أذقنا سلامنا يا جماعة قادين إذن ما دو يدسم بكي مركز سيدنا عمر بن الخطاب هو ويبالي شب أفكا يتوقف صدي أيو كسر بحياة قبل maalin dambe cumar ninkii ka arkay isagoo xalaqada dhex fadhiya markaasuu u yeedhay wuxuu 3 aayadood oo quraanka ku taala inaan jabiyey ummadda maadii sheegtay anigu kuma sheegin waa ku asturay anigu be markaas saxaabigiina wuxuu yidhi may ninkii muslimka ahaa wuxuu yidhi may yaa amiir almu'miniin haddaad adigu i asturtay aniguna waan ku asturo kuma sheegin buu ka yidhi yaa amiir almu'miniin bishaarayso maalintiiba anigana khamri igu dambayso waan ka toobadkeenay buu ummad asturaysa isjecel isku xidhiidhsan weeyaan marka boqol zamankii nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo zamankii cumar iyo zamankii abubakar iyo zamankii cusmaan iyo zamankii